haddii midkiin ay yiraahdo toddobaadkan buugga dhowr beed noogu soo koob amaba ku kaftamo abaalow dhadhamiska qudhiisa inoo dhadhami, waxaan oran lahaa intii uu yiri xaajaadan afqalo Allah u naxariiste goortuuna hoga tusaaleynaya helinka loo maro horumarka dhameystiran. adduuniya cilma qaaliye urur shamaalkiina ishtiraaga oo xoolo badan seeska ku adkeeya, ha ordina ee xaajada sidii eedinta u raaca, akhyaartiina daacadda tashiga wada ogeysiiya, ixtiraama waayeelku waa odayadiiniye, ahlan dhaha wadaadadu cilmigii ku aqriyayaane, inamada korayaa waxay ku aslaxaan fiirsha, edabtiyo hablaha sharafta bara waa islaamnimo dhadhamis waa barnaamij hadafkiisu yahay soo dhaweynta dhigaalka iyo dhiirigelinta dhalinta, waxaana soo gudbintiisa ka qayb qaatay shirkadda xawaalada Hami Express. barnaamijka waxaa kusoo gudbin doonaa miidda murtida ku jirta hadba buuggii aan u aragno inuu xambaarsan yahay macno iyo maandhis. haddaba si ay kuu soo gaarto xalqad kasta ee cusub, fadlan subscribe leh channelka lana wadaag saaxiibada. assalaamu calaykum, aniga waa abaal waa sugay, barnaamijkan waa dhadhamis. inkastoo aan soo raagay haddana waxaan idiin sidaa toddobaadkan buugga madkhal ilaa tanmiyat almutakaamila ama halka laga galo horumarka dhammaystiran ee uu qoray sheekh Dr. Cabdikariim Bakaar. siyaabo kala duwan ayaa loo qeexay horumarka dhammaystiran, hayeeshee qoraagu waxa uu ku qeexayaa isku geynta dadaal kala duwan dhanka kalena isku dheelitiran, kaasoo u suuragelin kara bulshada muslimka ah inay u istaagto amarka alle. sida uu qoraaga sheegayo, ladnaanta, caafimaadka, shaqo abuurista, tacliinta, tababarada iyo ka faa'iideysiga tiknoolajiyadda casriga ah dhammaan waxay u adeegayaan shay qura, kaasoo ah isku filnaanshaha bulshada muslimka ah iyo in shaqsiga muslimka ahaado mid ka maarma wax soo saarka dowladaha aan muslimka ahayn. intaana waxay u adeegayaan ama suurtagelin karaan in qofka muslimka ah oo si dhammaystiran ugu istaago xaqii ilaahay saaray. waxaa isweydiin mudan ama daawadaha isweydiin karaa maxaa iska quseeya toosnaanta qofka muslimka ah iyo tiknoolajiyadda ama horumarka maadiga ah. hayeeshee waxaa ogaataa saaxiib in badi dembiyada la xiriira mucaamalada ee akhlaaqiga ah ay sababteedu tahay dib u dhaca iyo takhallufka iyo dabcan faqriga. haddaa u fiirsatid, ribada iyo laaluushka, dawarsiga iyo xatooyada dhammaan waa mucaamalo aanan ku habboonayn qofka muslimka ah. intaana waxaa keena faqriga iyo dib u dhaca. maruu ka hadlaya qoraaga muhiimadda fakirka iyo adeegsiga caqliga ayaa wuxuu soo qaatay daraasad oranaysa in bashariyadda caalamka isu geen aysan adeegsan caqligeeda in ka badan 15%. kolka ayaan laabta iska iri, alla ilaahi Soomaalida caqligeedu weli waa dihan yahay oo waxba kama adeegsan. waxaan sidaa u leeyahay, waxaan nahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ama badankeedba ummad la diriirsan fakirka. haddaa u fiirsatid, hooyada Soomaaliyeed markay aragtaa cunugeeda isagoo fakiraya, durbo way soo faragelin oo waxay ku leedahay hooyo ha fakirin, xumaan kama aha. hayeeshee waxay aaminsan tahay in fakirka uu canuga la qaybsado tamarta iyo daaqada yar ee uu xambaarsan yahay. sidaa awgeed ma rabtay in inankeeda caatoobo, sidaana ayay fakirka ula dagaalanaa. oo guud ahaan waxaanu aaminsanahay in fakirka uu qofka jismiyan wax u dhimi karo. taasi dabcan haddaa u fiirsato waa mid ka mid ah aafaadka faqriga. sidoo kale waxyaabaha u leeyahay caqligeenu weli waa dihan yahay ayaa ah in guud ahaan ama badi Soomaalida aan u adeegsano asaasiyaadka nolosha, cuquusha dadyow kale ama waxyaabo ay dad kale soo saaraan. waxa aan cunno iyo weelka aan ku cunno intaba waxaanu ka keensanaa dibadda. sidoo kale firaashka aan ku seexano iyo dhammaan asaasiyaadka nolosha waxaanu ka keensanaa dibadda, taasoo ka dhigan inaan isticmaalno caqli dad kale leeyahay. eedeedana innagaa leh oo dilnay caqligeenni goortii aan ku tilmaamnay mufakirkeennii iyo ninkii wax noo soo saari jiray inuu yahay mid ka liita dadka kale. hayeeshee qoraagu waxa uu leeyahay ihmaalka iyo dayaca caqliga waxa uu keensan karaa isku dhexyaaca caqliga jiil dhan iyo dayaca dadaalkooda. sidoo kale saynisyahanka weyn Albert Einstein waxa uu leeyahay ma suureebayso inaan xallino mushkiladaha ina soo wajaha inagoo ku sugan nafsa darajo fakireed ee aan ku sugnayn markii aan mushkilada abuuraynay. sidaa awgeed waxaan u baahannahay inaan la nimaano afkaar cusub, samaynana isbeddel haddii aan rabno inaan ka baxno waaqican maanta ku sugannahay lana janqaadno nolosha casriga ah.
waxaa suurtagal ay ahayd casriye badan ka hor in qofka ummiga uu ku noolaado nolol sharaf iyo karaamo leh isagoo aan dareemin amaba ogaan inuu jiro qof ka cilmi iyo aqoon badan yacni kuna nool nololtiisa ka fiican. ha yeeshee casriga aanu maanta nool nahay ayaa waxa uu yahay casri adduunyadu isku bedeshay tuulo qura, taasoo keensanaysa haddii aadan naftaada horumarin oo aadan waxbaran inaadan ahaan doonin qof xura, ha yeeshee uu kugu shaqaysan doono qofkii waxbartay. sida uu sheegayo Voltaire waxa uu leeyahay qofkii aanan yacni lahayn ruuxda casriga uu nool yahay waxaa ku horta sharta casrigaas. waa dhab oo xitaa haddii aa u fiirsatid dowladaha maanta siday u kala awood iyo aqoon badan yihiin ayay isku adeecan. yeelkeedse qoraagu waxa uu tilmaamayaa si aan uga baxno jahliga inay suurtagal tahay in aan dhammaan iska kaashano yacni waxbarashada iyo dhiirigelinta aqoonta. ugu yaraan bulshada waa in lagu dhex baahiya ayuu leeyahay qoraaga yacni qiimaha aqrinta. tusaale, qofka haddii uu yeesho caado aqrin oo ah maalintii inuu aqriyo 30 daqiiqo mid ka mid ah culumta sida taariikhda, cilmiga bulshada, dhaqaalaha iyo sayniskaba, maalintii 30 daqiiqo hadduu aqriyo muddo 5 sano ah, waxa uu leeyahay qoraaga waxaa suurtagal ah inuu noqdo ustaad wax laga weydiiyo cilmiga. ha yeeshee waxaan u baahannahay keliya dhiirigelin iyo inaan ahaano kuwo u diyaara inay qaadaan ammaanada ka saaran horumarinta bulshadooda. inta badan waxaa moodaa in qodobkani uu cilaaqo la leeyahay qodobadii ka horreeyay. ha yeeshee qoraagu waxa uu leeyahay horumarinta shakhsiyadeed waxaa aasaas u ah in qofka uu awoodo inuu kala dagaalamo naftiisa shahwaadka iyo caadaadka xunxun ay xambaarsan tahay. sidoo kale waa inuu qofka ku qasbi karaa naftiisa dariiqa horumarka sida aqrinta, cibaadada iyo toosnaanta. halka waxaa gudboon inaan soo qaato hadalkii Dr. Mustafa Maxamuud Allah u naxariistay goortuu lahaa qaawim ma tuxibu wa tataxamal ma takrah, yacni la dagaalan waxyaabaha aad jeceshahay. nafta dabcan waxay jeceshahay waxyaabaha liita sida raaxada iyo caajiska iyo inaysan waxba hoola qaban. dabcan kala dagaalam naftaada. sidoo kale u dulqaada ama dulqaad u yeelo waxyaabaha ay nafta necab tahay oo ah aqrinta, cibaadada iyo waxyaabaha la halmaala. siday ila tahay midkeenna uma baahna in loo sheego in akhlaaqdu tahay yacni aas-aaska horumarka bulshadeed, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo soo saaray si uu u dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan. ha yeeshee qoraagu waxa uu tilmaamayaa inay lama huraan tahay inaan caruurta ku barno yaraanta akhlaaqda wanaagsan una yeelna akhlaaqdooda tiir ay ku taagan tahay ama ay ku istaagto. tusaale ahaan qoraagu waxa uu leeyahay haddii aad aragtid ininkaaga oo hortaada ku sameynaya qalad akhlaaqi ah, ha oran sidani waa ceeb. dadka haddii kugu arkaan way kula yaabayaan iyo erayo la mid ah, sababtoo ah taasi waxay siinaysaa fariin aan toos ahayn taasoo odhanaysa dadka hortooda ha ku sameyn ceeb iyo wax aan fiicneen. ha yeeshee markaa keligaa noqotid jaantaar rogan oo samee wixii kula macaada. ha yeeshee markaa aragtid taa beddelkeed canugaaga oo qalad sameynaya waxaa ku tiraahdaa sidani waa dembi, tani waa xaaraan, sidani ma habboona inaad samaysid, naftaada ayay wax u dhimaysaa iyo waxyaabo la mid ah, yacni erayo la mid ah oo ah erayo dhisa canuga qaacidadiisa akhlaaqeed. maxaa yeelay hadhow markuu keligii noqdo waxa uu xasuusan doonaa markuu damco inuu sameeyo qaladka inay dembi tahay, taasoo ku filan inay ka reebto iyo inay naftiisa wax u dhimayso. waxyaabaha dhanna waxay dhisi karaan qaacidada ay ku taagan tahay akhlaaqdiisa iyo inay akhlaaqdiisa ahaato mid ka duusha tiirka ahaa ixsaanka oo ah inuu qofka rabbigii u caabudo sida isagoo arkaya. maxaa yeelay hadduusan arkeen rabbi ayaa arkaya. ugu dambeyn dhammaan waxaanu ognahay in guurku yahay mid dhammaystira diinta qofka muslimka ah. ha yeeshee sidaas si la mid ah maalkuna waa mid dhammaystira diinta iyo dunyada qofka muslimka ah. maxaa yeelay haddii uusan maal jirin qofna ma xajiyeen, qofna zaka ma bixiyeen. zakada iyo xajkuna waa tiirar ka mid ah tiirarka islaamka. sidoo kale haddii aadan maal haysan dabcan guurkaba ma awoodeen, oo Soomaalidu waxay tiraahdaa xilo horteed xoolo kasbo. sidaa darteed waa maalku waa mid muhiim u ah diinta iyo dunyada qofka muslimka ah. qofka caaqilka ahna waa inuu ku dadaalaa kasbashada maalka xalaasha ah.
maxaa yeelay maalka iyo owlaaduba sidooda qiimo kuma lahan haddii aysan raacin sifada ah saalix oo waladka haddii uusan ahayn walad saalixa waa tacab iyo daal oo wax qiimo ah ma lahan dabcan maalkuna waa la mid haddii uusan ahayn xalaal waa xisaab iyo cadaab oo faa'iido ma lahan sidaa darteed qofka muslimka ah waa inuu aada uga fakiraa halka uu maalka ka soo galayo iyo halka uu ku bixinayo dabcan oo maalinta qiyaamo waa la weydiin maalka meesha uu kasoo kasbaday iyo meeshuu ku bixiyo sidaasi la mida waa inuu qofku ku dadaalaa tarbiyada owlaada ilaahay uu ammaanada uga dhigay sababtoo owlaadu waa ammaano waa inuu tarbiyadoodu ku dadaalaa si ay u anfacaan adduun iyo aakhiraba dhalinyarada soomaaliya calanka dhowraysa ee inuu dalkoodu dhismiyo dhaqanka doonaysa inkastoo dhallaaniya gabow ciidan lagu dhato oon dheeligow diidnadoo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu weli ku dheerayne